halka iga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed ku soo dhawaada meel kasta oo adduunka aad ku nooshihiin. waxaan rabaa inaan idin la wadaago aragtidayda yar markaasna aan ku salayhayo golaha fulinta iyo baarlamaanka. golaha fulinta hay-adihii garsoorka, cadaaladda, maxkamadihii, dastuurka qabyo qoraalka waa la leeyahay intaasoo sano, iyo shuruucyo badan oo dalkayna uu u baahan yahay oo hooso oo si aada oo daruuriya markaas loogu baahan yahay. shuruucdaas inay baarlamaanka ay u baasgareeyaan waayo inaynan ku dhaganaanin golaha fulinta ee dalkaynu. golaha baarlamaankana waxaa looga baahan yahay inay u fiiriyaan markaas istiraatiiji dhow iyo ku dheer iyo halka maanta taagan iyo halka biri aanan caqabad aanan ku naqa karin dalkayna jiilka soo koraya ma arkino soo baxayo iyo khayraadka dalkayna inay aad u ilaaliyaan markaas kana tagaan danaha shakhsiyaad ay ka foojignaadaan markaas ay danta guud ay indhaha ku hayaan. marka waxaa loo baahan yahay waxaasoo dhanba inaan ka gudubno. khilaafkan hadda socdo meel uu ku sal leeyahay garan maayo. ninka diidayo ma arkino aqoon-yahanka Soomaaliyeed anshaxa baarlamaanka loogu talagala ma aaminsanin dhahayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed na aaminayo ciidan shisheeyo garan maayo halkuu u socdo. cid garanaysa ma lahan meeluu u socdana garan maayo. waxaan dhihi lahay taas inay aqoon-yahanada ay shacabkooda la wadaagaan, taas waa sumcad darro dalka iyo baarlamaanka qiimi darro ku maantay. waxaa loo baahan yahay baarlamaanka inuu aad u shaqeeyo oo golaha fulinta la shaqeeyo oo la shaqeeyo baarlamaanka gudihiisa oo aragti fiican oo qaato markaasna oo dalka uu dhiriyaa una qaada dhigaasalkana u dhigaa. dalkan wuxuu u jajabsanay 30 sano muddo gaarayso. marka uu jajabsanayna waxaa loo baahan yahay aqoon-yahanka Soomaaliyeed iyo waay aragga Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay markaas gacmaha ay isqabsadaan markaasna ay si fiican loo shaqeeyo. waxaad u jeedin dalkayna waxaa weerar ku dana badan oo kala dugdugan oo ma arkino dalalka shisheeye ay ka rabaan markaasna aragti fiican laga qaataa iyo maslaxadda waxaana biri naga hor imaan karin. halkaa naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed. ku soo dhawaada meel kastoo adduunka ku nooshiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.